shaqo abuurka dhalinyaradeen inkastoo inuu dadaalay oo dhaqaale sameynay oo shaqo qaran abuuray haddana inta badan waa shaqalaad waana dhibaato adduunka jirta inagana gaar ahaan inoo haysata iyadoo afriba sabool ay wada tahay oo aynu la qabno saboolnimada dadka haddana waxaa inoo dheer go'doonka lanaga goodoomiyey inaan la xidhiidhno hay-adaha caalamiga sidaa darteed waxaanu bilownay in dhallinyarada aynu isugu geyno labada gacmoodba qaranka oo dhan dowlad iyo dadweyne iyo ganacsatada si shaqo loogu abuuri lahaa waana u abuuri karnaa haddaynu isku tashanno oo dhaqaale aynu ugu samayno warshado iyo hawl mashruucyada ku hawlgalaa waanu samayn karnaa ganacsadana waxaan soo jeedinayaa inay mashaariic waaweyn maalgeliyaan waddada isku xidha burciyo oodweyne lacag badan uma baahan ganacsadaha maanta shirkadana ka mid ah maalgeliya way karayaane wuxuu ku qaadan karaa waxaan la yidhaahdo tool inuu dhigto dariiqa laga dhiso custom waqti go-aan loo qabto uu xoolihiisa kala soo bixi karo 25 sano 20 sano intay kusoo baxsay inta la isla eego intaasoo kula dhalinyaro shaqo ka helay iyo mashaariic waaweyn oo kale lamid ah waa la abuuri karaa dhaqaaleeda waa iskaashi iyo aaminaada inaynu maalkeena gelino dalka aynu u baahannahay taana waxay ku xidhan tahay hogaaminta dowladda oo dhan xukuumaddu koow ka tahay golayaasha sharci dejinta laba ka yihiin maxkamadaha oo ninkii ganacsadaha uu ku dhirado haddii xaqiisa ama lacagtiisa muran ka gaba inuu maxkamad u geyso helayo sidaasay ku xidhan tahay taana waynu kari karnaa inagoo isku dubnaano mooye dhallinyarada ka saar kari mayno shaqo la'aanta baryo laynoo fidiyo waxaanu abuuray sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo ah in la isugu geeyo lacag dowladda ganacsatada cidiina caawinaysa sanduuqaasi wuxuu noqonayaa sanduuq dhalinyarada hal abuur kale laga amaahiyo lacag ay soo celiyaan oo aan dulsaar lahayn oo aan ku xidhnayn yaad garanaysaa oo aan ku xidhnayn yaa kaa dambeeya iminka ninka isla baan lacag ka maaho baanka la yaab male wuxuu hubinayaa isagoo warwar qabo qofkan hadduu lacagta siin waayo inuu wixiisa waayo maxkamadu ka u dheeraadaan idhaahdo qof lacagtaa soo celin kare oo anigu aan garanayo ama dhaqaale leh ama hubo ii soo sheega kuu keena boqolkiiba 90 dadka qaarkood oo garanayaan lacag ama ninkii lacagta lahaa in yaro halkaa joogo agoora aabihi jawaadi ku dhintay ama aabihi ku dhintay tukaran lacag iska geli maayo marka dadkii dalkan u shaqeeyay waa dulmay in loo gudbado baahan yahay soo tago waxaan soo saaray xeerkii sanduuqa lagu abuuriyay waxa kaloo ku shaqeeyay dagaalkii ugu horeeyay oo $200,000 golayaasha waxaan abiil soo jeedinaya inay ka hawlgalaan si sanduuqa loo kobcin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa